habeenkii la helay Emma iyadoo taalo keenta markaasina lafaheedii la burburiyey oo si aad u qaabdaro loo jarjaray waxay ahayd habeen roob da'ayay roobkaasoo ahaa mid aad u badan qof walba oo yimaaday markaasi tacsideeda aad ay u murugsanaayeen ardada iskoolkeeda waxay ku yaqaaneen wanaag inay tahay marka cidna ma garanayn qofka gabadha miskiinta dilay markaas qofka ugu murugada badan oo meesha joogay markii laga soo tago waalidkeeda waxay ahayd Hana saaxiibadeed Hana waxay ahayd qof kaligeed socon jirtay qofka kaliya u dhowna wuxuu ahaa Emma marka ay weysayna waxay dareentay murugo aad u badan iyo cidlo sababtoo weligeedba saaxiib may samaysan halkii saaxiibay samaysatayna wataa la dilay habeenada ka mida markii laga soo wareegtay in muddo dhimashadii Emma kadib waxaa markaasi soo kacday Hana hurdadii ayay ka soo booday ayadoo markaasi dareentay cabsi saa'ida wadnaheeda ayaa saa'id u garaacmayay qolkeedana wuxuu noqday mid aad u qabo markii ay geeskeeda eegtay sariirteeda geeskeeda waxaaba taagnaa Emma ayadoo si aan bini'aadanimo ahayn u dhoola cadaynaysa Hana naxdin darteed sariirta ayay ka dhici gaartay markaas ay waxay tiri Emma ayaa markaasi dhoola cadaysay madaxeeda ayay gees u jeedisay waxayna ku dhahday haa waad ii xiisa soo ma ahan markaas intaysa Hana u jawaabinba Emma ayaa haddana hadashay waxayna tiri aniga waan ogahay waxa i dilay 4 wiil oo iskoolkeena dhigto Hana ayaa u fiirsatay markaasi qaabka ay u egtaa Emma tinteeda wajiga ayay kaga dhigneen jirkeeduna waxaa mid aad u cad indhaheedana waxaabad moodaa inay yihiin dab qabow oo kale markaas ay hadashay Emma waxayna tiri 4 wiil oo iskoolkeena dhigta kuwaasoo la yiraahdo Jason Max Daniel iyo Eric ayaga ayaa i dilay waxay markaasi ii jiiteen dhinaca keenta way i garaaceen way i kufsadeen waxayna igaga hoos tageen roobka si aan meesha ugu dhinto qof i badbaadisayna ma jirto Hana iyadoo waxba hubsanba ayay markaasi naxday afka ayay qabsatay waxayna tiri markaasi ayadoo murugadeedii xanaaq isku bedelayso bahalladaasi way ka shallayn doonaan waxay ku geysteen subaxdii xigtay Hana waxay aaday markaasi iskoolka ayadoo meel fog ka daawanaysa wiilashii oo sidii caadada ahayd iska aamusan ayay xagga ka fiirsanaysay markii kawaadisheeda wuxuu ku dhacay Jason wiilka loo yaqaano wiilka dahabiga oo qof walba iskoolka jooga uu jeclaa markaasi gabar kasta way jeclaan macallimiintana way jeclaayeen laakiin dahabnimadiisu ma aysan ahayn mid ka badbaadin doonta Hana habeenkaasi roob ayaa bilowday inuu da'o markaasna Jason asagoo gurigiisa ayuu iskaga lugeynayay asagoon ka warqabin Hana oo daba socota markii uu galay luuqluuq cilaa ayay ka soo horbaxday wajigeeda uu duuban isaga intuu naxay oo gadaal u baxay ayuu yiri yaa tahay wuu qayliyey markaas ayay ku tiri cadaalad ayaan ahay way ku booday mindi ayayna caloosha ka gelisay qayladiisi markaas isaga waxay ku dhex milantay roobka wuu qayliyey laakiin inna ma maqlayso mindidii ayay ku celcelisay ilaa ay markaas nafsada ka sii baxayso markay nafsada ka sii baxayso ayay ku tiri u sheeg Emma inaan soo salaamayo ugu dambeyn way gowracday bartaas ayayna kaga tagtay halkaas ayuuna isagana luuqluuqa cilada ku nafwaayey taargetkeeda labaad wuxuu ahaa Max kaasoo loo yaqaanay wiilka aamusana gruubkooda qof walba wuxuu u yaqaanay wiilka miskiinka oo xataa aan daqsi dili karin laakiin Hana way taqaanay wejigiisa labaad habeenay xilli dambe ahayd ayay markaasi gurigiisa u soo dhacday daaqadiisa ayayna ka soo gashay Max wuxuu ku soo kacay qabowga mindida oo dhuunta ka saaran markaas ay ku tiri kac markuu indhaha kala furay oo iyada oo kor saaran arkay mindida ku haysa ayuu ku dhahay maxaa sameynaysaa markaas ay ku tiri ma waxaad u malaysay inaan ogaanaynin adiga waa waxaad dishay miskiintii Emma inta uu Janice wax ku sameeyay helinba dhuunta ayay ka marisay mindidii asaga markaas wuxuu bilaabay inuu gargariiro dhiigiisa ayaa wejiga kaga firiiray markaasna dhuunta ayuu qabsaday asagoo isku dayay inuu dhiiga joojiyo laakiin ugu dambeyn naftii ayuu bartaasi ku waayay labadii soo haray Daniel iyo Eric way garteen markaasi inuu qof gruubkooda si khaasatan u target garaysanayo markaasi labadooda iskama aysa agdhamaan oo marwalba iska agdhawaayeen ayaga way iska joojiyeen qosolkii iyo dadka la ciyaari jireen labadooda bas ayaa marwalba isla socon jiray ayagoo cabsi ka buuxdo ugu dambeyn fakar badan kadib waxay garteen qofkaasi inay tahay Hana sababtoo qofka kaliya Emma ka agdhawaa waxay ahayd iyada sidaas darteed waxay go'aansadeen inay iyada u dhigaan faji markaas ayaa wuxuu u tagay Daniel wuxuuna ku dhahay maalin iyadoo iskoolka la jooga waa ku salaamay Hana waxaan ka xumahay buu yiri dhibaatada ku soo martay saaxiibadaada qaaliga ayaa weysay ma ila kulmaysaa habeen si aan uga wada hadalno saaxiibada Emma Hana oo halkiis ka fikirta oo aan ka shakinba waxay istiri tani waa Janice oo isaga aad kaligiis ku heli kartid markaas waxay ka ogolaatay inay ku kulmaan guri cilaa habeenkii markay ahayd roobkii markii uu bilowday ayay wixii aaday gurigii ayadoo mindideeda ugu qarsan tahay funaanadeeda gacmaheeda
markii ay guriga gashay waxay aragtay Daniel oo meesha taagan isagoo dhoola cadeynayo. Dhoola cadeyntaasna ay qarinayso waxa uu dan leeyahay. Markaas wuxuu ku yiri waa ku faraxsanahay in ugu dambeyn timid. Intiisa halinba ka hor Eric ayaa gadaal ka soo maray wuuna qabtay oo dhulka ayuu ku dhuftay. Mindidii ayaa markaas iyadana dhulka kaga dhacday. Ma waxa u malaysay inaan ku ogaan doonin ayuu dhahay markaas Eric asagoo wali dhulka ku hayo. Daniel ayaa wuxuu soo qaaday mindidii markaasna dhinaceeda ayuu u soo dhaqaaqay wuxuuna ku dhahay Jason iyo Max adiga ayaa dilay soo maahan hadda waxa aan dhamayn doonaa wixii aad adiga bilowday. Mindidii ayuu kor u qaaday asagoo raba inuu Hana ku dilo laakiin si degdeg ah ayaa guriga dhan qabow u noqday. Nalalka ayaa istamiyay markaas ayaa waxa yeeray cod kaasoo dhahaya ha degdegin. Ruuxaantii Emma ayaa hortooda ka soo baxday iyadoo wajigeeda quruxda badnaa hadda uu isku bedelay mid aad u cabsi badan gacmaheedana ay yihiin kuwa aad u dhaadheer waxayna ku tiri ma waxaad u malaysaan inaad aniga iga baxsan kartaan. Waxay ku soo booday markaasi Daniel way qabatay markaasna kor ay u qaaday faraheedii dhaadheera ayay ka gelisay xabadka kuwaasoo dhaafay markaasi lafihiisii ugu dambeynna qabtay wadnihiisa wuu qayliyay asagoo xanuun saa'id dareemayo haddana markaasi wadnihiisa ayaa qarxay. Eric ayaa markaas wuxuu isku dayay inuu cararo laakiin Emma ayaa soo qabatay kor ayayna u qaaday markaas ayuu wuxuu yiri waa ku baryahay dilin asagoo baryotamaya markaas wuxuu ku tiri aniga naxariis ayaad ii muujiseen dhuuntiisa ayay si kadisaba u jabisay markaasna madaxiisa gadaal ayay u soo jeestay ugu dambeyn dhulka ayay ku soo tuurtay jirkiisii meydka ahaa. Emma waxay u soo jeesatay Hana markaas wuxuu ku tiri waan dhameeyay hadda ayaan nasan karaa markaas Hana madaxa ayay ruxday ugu dambeyn hal mar ayay dhoola cadeysay Emma wayna baaba'day markaas ayay kaga tagtay Hana ayadoo ay dhex taagan tahay guriga wada dhiiga. Hana waxay soo istaagtay roobka ayadoo markaas roobka uu ka dhaqayo dhiiga ugu dambeynna meesha ayay iskaga tagtay ayadoo ku faraxsan aargoosigii u aargooday saaxiibadeed laakiin aan ilaawi doonin waxyaabihii cabsida ay aragtay.